waxay ugu ahaa albaabka markaad iga furtaan inaan qoortayda ka wada gooyo xorriyaddeeda le martiiba igu soo celiya mar walba waxaad isku daydaan libaax inaad soo xirataan balse ugu dambayn libaaxaas miciyihiisa idinka ayuu idin dhibaataynaya iga fura albaabka ma iga furtaan albaabka ma iga furtaan مدن الفقار قبل انه شيء يسمع وقامي halkee u socdaan oo gabadha ay u wadaan haddaan goynana isdiyaar gareeyay ya وهيروكاغي adigu yaad noo ahayd artugaasi wiilkiisa Osman alla qoraya gabadhan sidii bil dhalatoo kale aan ku raadinayna adigaa lugaha nagu soo raadsaday soo maaha way kuu dhammaatay sida seefta loogu dagaalamo aad baad u taqaanaa cusmaanka Roomaaniyiinta markay magaciisa maqlaan ay ka baqaan maadiga waa shakhsigan ku hortaagan ima aad weydiin laakiin aniga ku sheegay targoon ayaan ahay ku fahmay qabiilka kuman halkan maxay ka soo dooneen boqortooyada ayay u dagaalamayaan Nicole iyo Falatius ayay rabeen inay la midoobaan si ay adig ku soo weeraraan dhankeen naga soo weerar rabaan taas adiga laga rabaa mudane Cusmaan inaad ogaato haddana waan ka sii tagay
وكاذي مرة ما انسى كذا ولي وان إلو بنا كوماد عليه ما تسند ما هذه الله يوصق معطي waxaan maqlay aabbaha dadkan inay dileen maadaama uu diid annagana weerarna lagu soo qaado adigana hadda shabaqaan ayay kugu siteen oo mudan cusmaan wax walba ka war haysaa maxaad aniga iga rabtaa marka ii sheegan ku weydiiyey naftaada inaan badbaadin waa waajibna saaran aniga nafsadeeda waan difaacan karaa mudana cusmaan waxba ha isdhibin waan iska adkaa waqti aan kugula dooda ma hayso si fiican ii dhegayso waxaan ku farasamay qabiilkayga ayaad ii raacaysaa isku diin manihin balse hal oday ayaan ka soo dejiynaa xisaabta ku dar isku diin mani waa saxanta mudana cusmaan balse dhiigga awowayaasheen ayaa hala hal dhiig ayaan nahay annagaad marti noo tahay dhaawacan ku soo garan waa in lagaa gubaa waa lagu qasban yahay waa dhaawac iska yar waa lagaa gubaya waa amarkayga ina marin